Taariikhdu waa qumane bulshooyinka haga. Ummad aan taariikh sugan lahaynna waa ummad aan jiritaankeedu sugnayn. Ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay taariikh fog oo hodan ah. Taariikh marka la dhaho waa erey aad u macno ballaaran. Haddase waxaan ka hadli doonnaa taariikhda halgankii ummadda Soomaaliyeed ay soo martay. Halgankaas oo aan u qaybin karno saddex qaybood oo kala ah halgankii Axmed Gurey 1488 ilaa 1543, halgankii Sayid Maxamed Cabdille Xasan iyo Darwiish 1900 ilaa 1920, iyo halgankii dhalinyaradii SYL 1940 ilaa 1960. Barnaamijkeenan maanta waxaan kaga hadli doonnaa halgankii Axmed Gurey. Ka hor intaanan barnaamijkeenan guda gelin, waxaan in yar milicsan doonnaa noloshii ummadda Soomaaliyeed ka hor gumeysiga. Gumeysiga ka hor, Soomaalidu waxay ahayd ummad xor ah. Rag badan oo taariikh qorayaal ahaa oo ay ka mid ahaayeen Ibn Battuta iyo Ibn Khalduun ayaa wax ka qoray markii dowladdii Cadal dhisneyd, qaabkii iyo noloshii dadka Soomaaliyeed qarnigii 14aad. Wuxuuna Ibn Battuta qoray markii uu sahan ku yimid magaalada Saylac 1331 inay ummadda Soomaaliyeed ahayd qarnigaas ummad madax bannaan. Qaab nololeedkii ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu sifeeyaa qabaa'ilo, reer guuraa, xoolo dhaqato, ugaarsato iyo beeraley oo isku garabsada dhibka wixii dheef ahna wadaaga. Aan dul istaagno mowduuca barnaamijkeena uu ku saabsan yahay. Assalaamu calaykum, wanaagsan oo wacan saaxiibayaal, ku soo dhowaada Dahsoon. Halgankii Axmed Gurey. Halgan kasta mar ayuu bilowdaa, cid ayaana bilowda. Halgankii gobonimo doonka waxaa udub dhaxaad u ah Axmed Gurey. Axmed Gurey waxa uu dhashay sanadkii 1488, waxa uuna ku dhashay tuulo yar oo la dhaho Hoobato oo dhanka waqooyi ka xigta magaalada Harar. Xanaqaadkii Axmed Gurey iyo waxaa isku soo aaday dowladdii Cadal oo ka talinaysay Harar ilaa Saylac. Waxaa cad in dowlad baaxadda intaas la eg xukumaysa in aysan weyneynin cid cadow ku noqota. Dowladdii Cadal waxaa cadowgeedii koowaad noqday Xabashi oo ay deris ahaayeen. Loolan iyo dagaalo aad u tiro badan ayaa dhex maray dowladdii Xabashida oo uu waagaas xukumayay Lebna Dangel iyo Axmed Gurey. Dagaalo badan oo dhex maray Axmed Gurey iyo Xabashi waxay guushu raacday Axmed Gurey. Boqorkii Xabashidu waxa uu noqday buuro galeen markii laga qabsaday magaalo kasta. 1529 waxa uu Axmed Gurey kaga guuleystay Xabashida goobta la yiraahdo Shimbire Kore. Waxaa la dhahaa geesi ishiisuu diriiraa. Axmed Gurey il baa ugu furantay nuglaanshaha Xabashida. Wuxuu ku xejiyey oo qabsaday taariikhdu markay ahayd 1531 Dawaara iyo Shawa. Sidoo kale sanadkii 1533 waxa uu qabsaday Amhara, Lasla iyo Ifat, kuwaasi oo ah gobollada dhexe ee halbowlaha Xabashida. Waxaan soo sheegnay in boqorkii Xabashida ee Lebna Dangel uu cararay oo uu buuro galeen noqday, halkaas oo uu ugu qayladhaan dirsaday Burtaqiis. Waxaa la sheegaa in Lebna Dangel la dilay sanadkii 1540 iyada oo aan gurmadkii Burtaqiisku weli soo gaarin. Axmed Gurey oo Xabashi ka adkaaday oo mid uu fiijiyey, mid soo islaamay iyo mid uu dilay ka dhigay dhulkii Xabashidana ku naaloonaya, ayaa Burtaqiiskii yimid. Dagaalo hor leh ayaa ka dhex bilowday Burtaqiis oo garab siinaya haraadigii Xabashida iyo Axmed Gurey. Ugu dambeyntii, Axmed Gurey waxa uu dhaawac ka soo gaaray Amba Alagi oo u dhow harada weyn ee loo yaqaano Lake Tana. Dhaawacaas oo uu ugu dambeyntii u geeriyooday. Allah u naxariistee. Geerida Axmed Gurey kadib, inkastoo ay muddo qaadatay, haddana halgankiisii sida suugaanta Soomaalida ku cad waxa uu tusaale iyo dhiirigelin u noqday halgan kasta oo ka dambeeyey. Kol haddaan ka hadalnay gumeysiga ka hor iyo xaaladdu siday ahayd, hadda waxaan ka hadlaynaa waqtigii gumeysiga. Mar haddii Axmed Gurey uu geeriyooday, halgankiina hakad ku yimid, waqti dheer waxaa xeebaha iyo qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ka talinayay Burtaqiis oo garab siinaya Xabashida. 1890 ayay gumeystayaashii kale ee reer Yurub soo caga dhigteen
dhulka Soomaaliyeed iyada oo la fulinayo heshiiskii Berlin ee Afrika lagu qaybsaday. Laga soo bilaabo 1884tii shirqoolkii Berlin ee qaaradda Afrika reer Yurub ku qaybsadeen ilaa qarnigii 20aad, nasiib xumo ku dhacday ummadii Soomaaliyeed ayay noqotay in isticmaarkii reer Yurub intuu heshiisyo qarsoodi ah kala qortay si ayaan daro ah 5 qaybood u kala qaybsaday dhulkii Soomaaliyeed. Shirkii Berlin ee Afrika lagu qaybsaday 1884tii, Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii lagu qaybsaday, waxaana loo qaybiyey 5 qaybood. 2 qaybood Ingiriis baa qaatay, qayb Talyaani baa la siiyey, qayb Faransiis baa qaatay. Qaybta 5aad Xabashi ayaa laga ballan qaaday in la siinayo marka ay yeelato awood ay ku haysan karto inta ka horeysa Ingiriis ayaa u sii hayay. 1884tii ayaa Ingiriisku degay waqooyiga iyo gobollada Koonfur Galbeed. 1883dii ayaa Faransiisku saldhig ka samaystay xeebta Jabuuti. 1892dii ayaa Talyaaniga xeebta Banaadir ka ijaartay Suldaankii Sanjibaar. Xabashi oo ahayd dowlad Afrikaan ah ayaa iyadana tartankaasi qayb ka gashay, oo taariikhdu markay ahayd 1897dii boobtay magaalada Harar iyada oo Ingiriisku gacan siinayo. Harar kuma aysan ekaanin ee duulaan joogto ah ayay waxay ku soo gaartay halka maanta uu yahay xuduud ku sheega beenta ah ee hadda u dhexeeya Xabashida iyo Soomaalida. Waxaan halkan ku soo koobayaa barnaamijkeena qaybtiisii 1. Haddii aad halkaan nala soo gaartay daawade, subscribe-ka haynaga iloobin, sidoo kale fiidiyogana like inoo saar. Mahadsanid daawade.